Ethiopia iyo Eritrea waxay leeyihiin taariikh aad u dheer oo isku dhafan taasoo soo bilaabatay boqolaal sano ka hor. Waa laba dal oo marxalado kala duwan isla soo maray colaad iyo nabad intaba. Haddaba dib aan u jaleecno sooyaalka taariikheed ee labadan dal. Dhulka maanta loo yaqaano Eritrea iyo qayb ka mid ah Ethiopia wuxuu hoos tagi jiray boqortooyadii Aksum, iyadoona saldhigeedu ahaa magaalada Aksum oo hadda ku taala gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. Eritrea waxay ahayd qayb muhiim ah oo ka mid ah boqortooyada, waxayna dekedaha muhiimka ah sida Adulis noqdeen xudun weyn oo ganacsi. Laakiin markii boqortooyadii Aksum awoodeeda hoos u dhacday, gobolku wuxuu galay jahwareer iyadoona awoodihii kala duwanaa ay isku dayeen inay maamulaan dhulkan. qarnigii 19aad Ethiopia waxay dagaal kula jirtay gumaysigii reer Yurub, gaar ahaan xilligii uu Ethiopia hogaaminayay boqor Menelikii labaad. waxayna Ethiopiaanku ku faanaan dagaalkii Adwa oo ay Talyaaniga ku jabiyeen. laakiin Talyaaniga mar kale ayuu Ethiopia weeraray gaar ahaan sanadkii 1935, waxayna kolkaan ciidamadii Talyaaniga adeegsadeen hub casri ah oo ay awoodi waayeen in ay Ethiopiaanku iska difaacaan. 1936 Talyaanigu wuxuu si rasmi ah u qabsaday Addis Ababa, Haile Selassie wuxuu u qaxay Ingiriiska. 1936 ilaa 1941 Talyaaniga wuxuu Ethiopia ku haystay xukun gumaysi, wuxuuna u kaba gashaday inuu aasaaso mustacmarad Talyaaniga, Italian East Africa. intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, Ingiriisku wuxuu caawiyay Ethiopia si ay uga xoroodo Talyaaniga. 1941 ayayna Ethiopia ka xorooday Talyaaniga, waana arrinkan mid ka beeninaya sheegashada Ethiopia ee ah inay tahay dalka kaliya ee Afrikaan ah ee aan la qabsan. dhanka kale, dood kama taagna in Eritrea ay Talyaanigu si rasmi ah u hoos tagtay, waxaana la qabsaday sanadkii 1890. waxayna tani abuurtay farqi weyn oo u dhaxeeya Eritrea iyo Ethiopia, oo xitaa caasimadda Eritrea ee Asmara ilaa maanta waxaa lagu naanaysaa Roomada yar oo waxaa ka muuqda weli raadkii Talyaaniga. kadib dagaalkii labaad ee dunida, ciidamada Ingiriiska waxay qabsadeen Eritrea iyagoo ka saaray Talyaaniga sanadkii 1941. kadibna waxaa dhashay muran ku saabsan mustaqbalka Eritrea. kolkii uu dhamaaday dagaalkii labaad, qaramada midoobay ayaa loo xil saaray go'aaminta mustaqbalka Eritrea. 3 aragti ayaana jirtay oo miiska la soo saaray, kuwaasoo kala ahaa in Eritrea noqoto dal madax bannaan, in Ethiopia lagu daro waa sida Ethiopia rabtay iyo in loo kala qaybiyo 2 qaybood, in muslimiinta degan xeebaha madax bannaani la siiyo, Kirishtaanka gudaha ku jirana Ethiopia lagu daro. Ethiopia waxaa xukumayay xilligaas boqor Haile Selassie oo Mareykanka iyo reer galbeedka saaxiib la ahaa, waxaana 1952 uu ururka qaramada midoobay uu si rasmi ah u go'aamiyay in Eritrea si jujuub ah loo hoosgeeyo Ethiopia, isla markaana ay ku midoobaan hab federation ah, in Eritrea xukuumad u gaar ah yeelato, arrimaha dibadda iyo difaacana ay Ethiopia qaabilsanaato. 1962 Haile Selassie wuxuu si rasmi ah u baabi'iyay nidaamkii federationka, wuxuuna Eritrea si buuxda ugu daray Ethiopia. kadibna waxaa bilowday dagaalkii gobonimo doonka ee Eritrea madax bannaanideeda ku doonaysay, kaasoo socday muddo 30 sano ah. kadib talaabadii Haile Selassie waxaa aasaasantay jabhaddii ugu horeysay ee hubeysan ee Eritrean ELF, taasoo dagaalka bilowday sanadkii 1961. ELF waxay ka koobnayd qabiilooyin kala duwan, mana lahayn hoggaan midaysan, waxayna jabhaddan hub ka heli jirtay dalalka Suudaan, Ciraaq iyo Syria. sanadkii 1974 afgambi military ayaa talada Ethiopia lagaga tuuray Haile Selassie, waxaana xukunka la wareegay dargii uu hogaaminayay Mengistu Haile Mariam. xukunka dargiga wuxuu noqday mid adag, wuxuuna dagaalo ba'an ku qaaday jabhadihii gooni-goosadka ahaa sida kuwa Eritrea. jabhaddii ugu horeysay ee Eritrea ee ELF waa ay kala qaybsantay, khilaaf ayaana ka dhex dhashay. kadibna sanadkii 1970 dhalinyaro Eritrean ah oo hogaaminayay Isaias Afwerki ayaa aasaasay jabhadda EPLF. jabhaddan waxay ahayd mid aad u abaabulan oo leh mabaadi' adag oo hanti wadaaga, waxayna dagaal la gashay jabhaddii ka horeysay ee ELF. ELF waxaa hogaaminayeen kooxo isku dhafan oo badankoodu asal ahaan ka soo jeeday qabiilooyinka muslimiinta, waxayna lahayd nidaam aan aad u midaysnayn kaasoo ugu dambeyn keenay khilaaf gudaha ah. haddaba EPLF waxaa hogaaminayay Afwerki, wuxuuna rabay in halganka lagu mideeyo hal hoggaan oo adag, wuxuuna ugu dambeyn ku guuleystay inuu ka adkaado ELF sanadkii 1981. EPLF waxay xiriir la lahayd midowgii Soviyeeti iyo dalalkii Shuuciga ah, inkastoo markii dambe ay xiriir fiican la yeelatay Shiinaha,
waxayna EPLF noqotay awoodda ugu weyn ee Eritrea leedahay. 1974 ilaa 1988 Ethiopia waxay heshay taageero military oo weyn oo uga timid Midowgii Soviet. EPLF-na dagaalo ba'an ayay Ethiopia la gashay iyadoo adeegsanaysay xeelado dagaal oo casri ah, waxayna si weyn isaga difaaceen weeraradii uu Mengistu ku soo qaaday 1978. waxaana kadib xigtay in 80meeyadii EPLF la wareegto gobollo badan oo Eritrea ah. sanadkii 1988 EPLF waxay la wareegtay magaalada Afabet, taasoo ahayd guul weyn oo dhabarjab ku noqotay Ethiopia. wixii markaasi ka dambeeyayna jabhaddu waxay xoojisay weeraradeeda iyadoo si xeeladaysan u qabsanaysay dalka. dhanka Ethiopia, dargigii xukuumayay wuxuu noqday mid aan awood badan lahayn, waxaana ka soo horjeesteen jabhado kale oo Ethiopian ah oo ay ugu weyneed TPLF. sanadkii 1991 Mengistu waa uu isaga cararay Ethiopia wuxuuna u baxsaday dalka Zimbabwe. kadibna jabhaddii EPLF waxay si buuxda ula wareegtay caasimadda Asmara, waxayna tani jabhaddu uga dhigneed guushii ugu dambeysay ee halgankii dheeraa ee soo bilowday 1961. kadib markii EPLF ay la wareegtay Eritrea, waxaa la qabtay afti lagu go'aaminayo in dalku noqdo mid madax bannaan. dadka Eritreana waxay 99.8% u codeeyeen in dalkoodu noqdo mid gooni u taagan oo madax bannaan, waxaana si rasmi ah Eritrea ay dal u noqotay 24 May 1993. Afwerki wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Eritrea, waana madaxweynaha kaliya oo ay yeelatay Eritrea, wuxuuna dalka ka dhigay mid leh nidaam adag oo military ah. dhanka kale 1991 waxaa Ethiopia qabsaday xisbiga EPRDF oo ahaa isbahaysi mucaarad ah oo ay hogaaminaysay TPLF. Meles Zenawi oo ahaa hogaamiyaha TPLF ayaana noqday ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia, wuxuuna dalka ka dhigay mid federaal ah. xukunka Ethiopia iyo Eritrea waxaa majraha u qabteen Meles Zenawi iyo Isaias Afwerki oo sooyaal taariikheed wadaaga, waxayna mar ku wada noolaayeen magaalada Muqdisho gaar ahaan 80meeyadii. waxayna labadooduba xilligaasi Soomaaliya u tageen in garab lagu siiyo dagaalka Ethiopia kula jireen. halganka kadib muddo ayay saaxiib si ahaayeen ilaa markii dambe ay fooda isdareen gaar ahaan 1998 markaasoo labada dal uu dagaal qaraar ka dhex qarxay. dagaalkan wuxuu ka dhashay muran xuduudeed u dhaxeeyay Ethiopia iyo Eritrea. deegaanada ay isku hayeen waxaa laga xusi karaa oo dagaalka xudun u ahaa tuulada lagu magacaabo Badme. in ka badan 100,000 oo askari ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen dagaalkan. 18 Juun ee sanadkii 2000 ayuuna dagaalkan istaagay kadib markii labada dhinac ay ku ogolaadeen xabad joojin rasmi ah heshiis ka dhacay caasimadda Algeria. 2 Abriil 2018 TPLF waxay lumisay xukunka Ethiopia oo ay haysatay muddo 27 sano ah kadib markii uu Abiy Ahmed noqday ra'iisul wasaaraha dalka, wuxuuna sidoo kale noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. Abiy wuxuu Afwerki la saxiixday heshiis nabadeed isagoona aqbalay go'aankii heshiiskii Algeria ee muranka xuduudda, waxaana dib loo furay safaaradaha labada dal. Abiy wuxuu kolkii hore ka yimid xisbigii dalka xukumayay ee EPRDF, laakiin wuxuu qaaday tallaabooyin uu miciyaha uga siibayay Tigreega muddada talinayay, wuxuuna xilalka ka qaaday saraakiishii TPLF ee hay'adaha muhiimka ah xilalka ka hayay. sidoo kalena wuxuu furay baaritaano lagu sameeyay madax sare oo TPLF ah. bishii November ee 2020 waxaa qarxay dagaalkii Ethiopia iyo TPLF. Eritrea waxay si buuxda uga qayb gashay dagaalkan iyadoo garab siinaysa Abiy Ahmed, waxayna ciidamada Eritrea gudaha u galeen gobolka Tigreega si ay u jebiyaan TPLF oo inta ay xukunka Ethiopia haysay si weyn uga shaqaysay in Eritrea cunaqabateeno la saaro. bishii September 2022 wuxuu dagaalku gaaray heerkii ugu sareeyay. ciidamada Ethiopia oo ay taageerayaan Eritrea iyo ciidanka gobolka Amxaarada ayaana weerar culus ku ekeeyeen caasimadda gobolka Tigreega ee Mekelle. 2 November 2022 waxaa soo gabagaboobay dagaalkan, waxaana heshiis lagu gaaray magaalada Pretoria ee South Africa, waxayna TPLF ogolaatay inay hub ka dhigto. haatan gobolka Tigreega wuxuu u muuqdaa mid mar kale wajihi doona xaalad dagaal isla markaana uu si rasmi ah u burburi doono heshiiskii Pretoria. maamulka gobolka Tigreega ee dawladda Ethiopia hoostaga waxay TPLF ku eedeynayaan in ay xiriir la yeelatay Eritrea. dhanka kalena TPLF waxay sheegaan in kuwa talada haya ee ku fashilmeen soo celinta dadka ku barakacay dagaalkii ilaaday 2022.
sidoo kale waxay gadood ka muujiyeen in qaybo ka mid ah gobolka Tigreega ay weli haystaan awoodo kale sida Amxaarada. Eritrea waxay haysataa dhul baaxad weyn oo Itoobiya ka mid ah. dhanka kalena Itoobiyaanku waxay si weyn u bumbuuninayaan inay dib u qabsanayaan dekedda Asab ee Eritrea oo mar ahayd deked muhiim ah oo Itoobiya hoostagiisa, gaar ahaan ka hor inta aysan Eritrea dal rasmi ah noqon 1993. Eritrea waxay ku sugan tahay gudaha Itoobiya, waxayna dab ku sii shidi kartaa oo garab weyn siin kartaa TPLF oo ah Tigreega Abiy Ahmed ka soo horjeeda iyo jabhadda Amxaarada ee Fano. waxaana sidoo kale sii jirtaa jabhad Oromadu leedahay oo lagu magacaabo OLA, waxayna ONLF laftigeedu sheegtay inaysan dowladda Itoobiya fulin heshiiskii ay la galeen 2018. Abiy ma u babacdhigi karaa siyaasad iyo dagaal ahaan intaas oo jabhadood oo uu gadaal ka taagan yahay cabqariga dagaal ee 30 sano u jabhadeynayay madax banaanida Eritrea? adigu sidee u aragtaa?